والله سعوتها حالك قولها وكيلة حدا قدومي قولها جي وكيلة حير العالم توحي كسو أوكتي الدنبي أو واحد ترى هلا قاعدة حسانة دي سحل دبانمية قدومية بل حالك قدوميها وواجهها سيدا وارك كلي أنا وحنو دارين قضية السومال لان وحلالي وحي كسور كذا قضية السومال لان أنا نجمد معها قدومية وحلا ذو كسور أنا وحوي أنا وحنقولها قولها وكيلة وانتشرنا حل برا ولا الله يبغى تشرنا حالك قدوميها سيدا وارك حالك قدوميها قولوا هريالا قولوا هريالا إذا تكون ورقة تامبا سفر شقاكم بغنا مدو أنا قول قبل أبيد الكندا iyadoo aan 18 mayna halka u tagay oo aanu socod dheer ka sameynay magaalada Toronto la yiraahdo oo dawladda Canada noo ogolaatay oo Somaliland dariska halka joogay ay long march aan ka sameynay oo jidadkana loo xiray oo aanu qadiyadeeda iyo waxayaga aan tusnay shacbiga halka ku nool oo aan aad ugu mahadnaqayo shacbigii reer Somaliland ee dalka Canada guud ahaanba sida fiican ay u soo qayb galeen iyadoo maalin shaqaa ku haadanayd haddana si fiican buu ka soo qayb galeen waan ka gudubnay magaalada Ottawa aan tagay waxaan la kulmay speakerka aqalka golaha wakiilada ee dalka Canada ama baarlamaanka Mr. Anthony Rhoda iyo ku-xigeenkiisa oo aqalka ay ku soo dhaweeyay oo si fiican u sheekaysanay oo aan wixii aan sidnay iyo lifladadii aan siday iyo qadiyada aan u gudbinay oo markii ugu horeysay ee aan baarlamaanka Canada speakerkiisuna qaabilo Somaliland aad baan u sheekaysanay waxay kale habeenkii geeyeen wasiirka kalluumaysiga oo Miss Joyce iyada la yiraahdo oo aan yadnaanu hawlo iyo mashaariic aan kala hadlay oo aanu u gudbin doona hadii Ilaahay yiraahdo kadib inta dabadeed waxaan haddana u safray magaalada la yiraahdo Edmonton iyadoo haddana xafladda 18 May halka kaga qayb galay tii Toronto maahay taana kaga qayb galay oo wasiirka dalxiisku uu naga raacay halka oo uu Edmonton naga qayb galay waana markii ugu horeysay wasiir golaha wasiirada ee dawladaha reer galbeedku uu si toos ah xafladda 18 May madax bannaanida Somaliland uga qayb galo iyadoo aan halka shacabkii reer Edmonton anoo guud ahaan bareey Canada wada mahadnaqaya reer Edmonton si fiican bay wasiirka u soo dhaweeyeen annagoo habeenkiina si fiican u caweynay aadna u sheekaysanay mahadnaq ballaaran baan xildhibaanadii golaha wakiilada ee faraha badnaa ee la kulmay ee dalka Canada aan ugu mahad celinayaa shaqada iyo wixii hoosana golaha wakiilada uga warrami doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u safray haddana dalka Mareykanka labadiisa aqale gobolka Minnesota la yiraahdo caasimadiisa Minnesota ama Minneapolis iyo St. Paul la isku labada magaalo mataanaha ayaan labada aqalba kula kulmay Senate-kooda iyo aqalka wakiiladaba senatoro iyo deputy speaker-ka aqalkaasi iyagoo nagu soo dhaweeyay halkaasi oo aan wax badan ka sheekaysanay si aan xiriir u samaysan lahayn aan ugu warramay saan u shaqayno iyo sida u shaqeeyaan inaan wax badan kala kororsanno haddii Ilaahay yiraahdo iyaguna si fiican baanu wax badan iskula eegnay xogihii iyo wixii kala golaha iyo waxa ka sidaba golaha wakiilada wuu warrami doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqayaa walaalahayga golaha wakiilada ee maanta halkan igu soo dhaweeyay sida fiican iyo shaqaalaha golaha wakiilada iyo baahdiina saxaafadaba aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay wixii su'aalaha iyo wixii kalena golaha inuu isku wareysan doonaa hadii Ilaahay gudoomiye hal su'aal aan ku weydiiyo walla socotaa xaalka golaha wakiilada hadda gudoomiye golahaagii wakiilada xeer ilaalintu waxay ku soo oogtay dambi oo waxay tiri hal laga qaado xasaanadii sixil dibaanimiye gudoomiye bal xaalka gudoomiyahaga uu waajahayo sidoo u aragtaa hadda كلي أنا وحنو دارين قضية السوماليland
وحلالي وحي كسور جيدا قضية سوماليلاند أنو نقمد معها قدومية وحلالي وكسور جيدا أنا وحوي أنا وحن كلها قلها وكيلها وانتشرنا حلبنا والله يبغى تشرنا أنا وين قدومينا حالك قدومية سيدو أركت هذا حالك قدومية قولوا هريالا قولوا هريالا